waxaa bilaabatay tirinta muddada halka sana ay ka hartay in waddanka Qatar oo marti qaado dhacdada ugu weyn ee kubadda cagta ee adduunka, halkaas oo Qatar u noqon doono waddankii ugu horeeyay ee bariga dhexe ku yaala Carabta ah ee marti qaado koobka adduunka. Waxay noqonaysaa markii ugu horeysay oo sidoo kale waddan muslim ah ama ku yaala khaliijka uu si toos ah u marti qaado koobka adduunka. caadi ahaan ciyaaraha koobka adduunka ee kubadda cagta waxay dhici jirtay xilliga xagaaga, laakiin kuleylka ba'an ee waqtigaasi ku soo beegmay waddanka Qatar ayaa loo raray booska jiilaalka ee November ilaa December, inkastoo heerkulka uu weli uu gaari doono ilaa 25. waxaa jirta dhaleeceyn badan oo ku aadan go'aankii lagu gaaray in lagu qabto dalka Qatar koobkan sababo la xiriira walaac laga qabo xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalkaas. Toddobaadkii la soo dhaafay, Amnesty International ayaa soo saartay warbixin ay ku eedeysay dalkan inuu ku guuldareystay inuu fuliyo shuruuc u gaar ah ee loogu talagalay in lagu wanaajiyo xaaladaha shaqaalaha muhaajiriinta ah, inkastoo dowladda Qatar markii dambe warbixin ay soo saartay ay ku beenisay. Munaasabadii lagu daahfurayay tirinta muddada halka sana ay ka hartay dhacdada koobka adduunka ee Qatar lagu qabanayo waxaa goobjoog ahaa madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee FIFA. waxa uu yidhi taageerayaashu waxaa loola dhaqmi doonaa si wanaagsan. waxaa halkan ku arkay qaab qurux badan oo diyaar garow ah iyo sida ay Qatar diyaarka ugu yihiin soo dhaweynta dhammaan dadka kala duwan ee ka imaanaya adduunka dacladiisa. koobka adduunka ee Qatar 2022 wuxuu ka bilaaban doonaa garoonka quruxda badan ee lagu magacaabo Al Bayt, kaasoo lagu daahfuri doono ciyaaraha FIFA Arab Cup 2022 markuu xulka Qatar wajaho dhigiisa Bahrain. isla maalintaas garoonka weyn ee cajiibka ee Ras Stadium ayaa sidoo kale albaabada loo furi doonaa. waan ku faraxsanaynaa heerkan aan soo gaarno. waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo markaasi nagu taageertay in aan mashruucan fulino, kaasoo qaatay in ka badan 10 sano. tani waa waqti gaar u ah Qatar oo ah dalka martida loo yahay 11 sano dadaal iyo horumar kadib. waxaa si wanaagsan u wadnaa inaan gaarsiino koobkii adduunkii ugu horeeyay gobolkeena, kaasoo dhaxal weyn u reebi doona Qatar, gobolka iyo caalamka oo dhan. bisha April ee sanadka soo aadan ayaa la warinayaa in la sameyn doono isku-aadka koobka adduunka ee kulamada heerka group stage-ka marka la xaqiijiyo wadamada u gudbay heerka kale ee tartanka in markaasi ay soo baxeen kuwaas oo ciyaaraya kulamada play-off-ka loo yaqaano. Qatar waxaa lagu diyaariyey in wadooyinka ay dadku ay ka heli karaan biyo ay cabaan. shaqaalaha gurmadka degdeg ah ayaa sidoo kale aad loo kordhiyey. sidoo kale waxaa la heli karaa in qofku markaasi loogu adeegi karayo asigoo jooga gurigiisa. taageerayaashu waxay heli karaan basas dhaadheer oo ay ku imaan karayaan gudaha garoonka ay doonayaan. maalintiiba waxaa dhici karta ilaa 3 ciyaarood, taas oo fursad siin karta taageerayaashu inay markaasi ay daawadaan dhammaan ciyaaraha dhacaya. masaafada ugu dheer ee garoomada waa ilaa 75 kilomitir. safarku wuxuu qaadan doonaa ku dhawaad saacad, halka masaafada ugu yar ay tahay 5 kilomitir. tani waxay qaadan doontaa ilaa 5 daqiiqo. garoonka ugu weynna waa garoonka lagu magacaabo Lusail Stadium oo qaada 80,000 oo qof. wuxuu marti qaadi doonaa finaalka koobkan. 6 ka mid ah 8 garoon ayaa hadda la soo gabagabeeyay oo diyaar ah. 2 garoon ee soo hartana waxaa la dhammaystiri doonaa dhammaadka sanadkan. saacadaha furitaanka ee xilliga maxalliga ah ee tartanka waxa ay ku beegnaan doontaa 1, 4, 7 ilaa 10 habeenimo. qabaqaabiyaasha tartanku waxay sheegeen in ay rajeynayaan in tartanku uu noqdo midkii ugu xiisaha badnaa ee ka qabsooma dunia Carabta ah. wadamo ay ka mid yihiin Argentina, Belgium, Brazil, Croatia, Denmark, England, France, Germany, Netherlands, Serbia, Spain iyo Switzerland iyo martiqaadayaasha Qatar ayaa ilaa imika la xaqiijiyay inay dhacdada toos ay u aadi doonaan. xidiga waaweyn ayaa tartanka goor sii horeysa la xaqiijiyay inaysan ka qayb geli doonin, sida xidiga Dortmund Erling Haaland oo aad looga baadigoobayay qaaradda Yurub, wuxuuna ku guuldareystay in xulkiisa u soo saaro koobka adduunka. halka xidiga uu ka mid yahay Ronaldo ay halis ugu jiraan inay seegaan tartankan kadib markii ay u gudbeen kulamada play-off-ka. xulka difaacanaya koobka Euro-ga ee Talyaaniga oo asna markaasi aan ka soo qayb galin koobkii adduunkii ugu dambeeyay Ruushka lagu qabtay ayaa asna halis ugu jira. Qatar wax walba way u diyaarsan yihiin. sidoo kale waxa ay diyaarinayaan adeegyo kale oo muhiim ah oo ay soo bandhigi doonaan muddada halka sanaha ee ka harta tartanka gudahood.